maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو سو نقد وناكسن معلميني ولي waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii saddexaad ee dugsiga sare ee taariikhda waxaan soo qaadanay ilaa ay hadda 4 cutub aan soo qaadanay oo labana uu soo jeediyay ustaad Abubakar oo ani ah iyo labana doctor Cibaar oo soo jeediyay wali waxaan noo harsan 3 cutub oo hadda aan bilaabi doono cutubkii shanaad ayaan bilaabaynaa haduu la yiraahdo oo cinwaankiisu uu yahay ثورات وحروب كبرى كعدونو iyo dagaalo waaweyn marka kubrada labadaba oo qaybsamay ثورات كبرى وحروب كبرى kacdoono waaweyn iyo dagaalo waaweyn sida waxdadan marka oo haduu Ilaahay yira waxaan ka rabnaa dhowr ujeedo in xaqiijino sida caadi aan ku soconay oo ila 16 waxdo 16 hadaf inaan ka xaqiijino cutubkan aan rabnaa haduu Ilaahay waxa kamid ah in ardayga laga rabaa inuu xaqiijiyo si aan ku ogaano mataqaan inuu fahmay waxa loo dhigay waxa la rabaa ardayga inuu garto ama sifeeyo America xaaladda ay ku sugneed inta kacdoonka aysan sameeynin wadanka Mareykanka kacdoon uu sameeyay ka hor sidoo ah wadanka waxa kale laga rabaa arrimaha factorieska ama sababaha ku xambaartay inay kacdoon sameeyaan إلا كعظم وحسهلا معها إسكهر إماد واي أوذا الإسكهر إمانا دباتا إمان كرتو محاكو حنباري هذانا إنو أرضيك تحو قيمك فاليوسك إيو مبادئ إذا أو كتاقناي كعظم كمريكنك وجدي لهايا قيم الشيكتين إنو كعظم وقذالك الريحاي وأركي دورنا دولين كعدون كان سامين وسمي رادو كتغي أمريكا قدهذا إيه في العالم الدنيا ذا سامين إلى يومنا هذا حتى سامين توسعتا كعدون كان محقق بلد وين شخصيات وكعان كان مريكا كغيب قلي وأركضنا وغوريو جورج واشنطن ومركز دم النقضي مدحوينه مريكا ومقالة واشنطن مقعيس اللسيي qaybtaas ilaa wuxuu ka kooban yahay muxuu ahay waxdadan 13 oo ah kacdoonkii Mareykanka kacdoonkii Faransiiska iyo dagaalkii koowaad ee dunida marka ahdaafta naga soo aaday kacdoonka Mareykanka intaas waa ku dhaafi karnaa kii waxaan galeynaa Faransiiska kacdoon sameeyay xaaladii Faransa kacdoonkan ka hor sidee ayadan ahayd qaabkay lahayd haye maxaa ku xambaaray kacdoonkan inay sameeyaan Faransiiska qiyamka iyo mabaadi'da ku saleysna kacdoonka ay sameeyaan maxaa values maxawti saameyn muxuu lahaa kacdoonka Faransiiska ilaa wax kasta saameyn leeyahay raadi ka tagaan raadkaas iijaab waa noqon karaa salban waa noqon karaa mid fiican mid xun shakhsiyaad baa wax kasta dad gadaal ka riixo hogaani leeyihiin wax kasta kacdoonada hogaamiyo ujeedooyina loo sameeyo waxa soo dhan taasna waxa uga baxaynaa ujeedooyinka aan ka leenahay kacdoonka Faransiiska dagaalkii koowaad ee adduunka dunida waxa ka dhacay dagaal weyn oo inta ugu yaraan
intaasoo wadan 26 wadan camal la sheegaa ay ka qayb galeen oo ka badan tahay waliba maxaa keenay dagaalkan dhaliyay kitaabka waxaan ku arki doonaa laba asbaab waay asbaab غير مباشرة indirect causes wax mudday soo socdeen wuxuu hal mar iskama dhacaan mudday soo socdeen iyo direct cause sabab mubaashir oo markaas dagaalka inuu dhaco keenayso waay waa arki doonaa waxba dhacayo isla markii qolo kasta waxay isu diyaarinaysaa in dagaal gasho kaalimaha oo dagaalkan qaatay heerarka uu soo maray iyo wixii ka dhacay waxba dhibaatooyin badan oo timid iyo ugu dambeyntii natiijadii ka soo baxday oo Soomaaliya saameyn ku leh laftirkeeda waa ku leh Soomaaliya jasiirad gaar ah midagana ummadahaas ay ka mid tahay saameyn ku leh bal xataa dad badan oo Soomaali way ka qayb galeen caalamka muxuu saameyn ku yeeshay wax weyn ku yeeshay waa arki doonaa andimadii maamulkii isbedelay wax badan isbedelay waxa soo baxay quwado awal aan jiri jirin waxa baabeen quwado kale marka ahdaaftaas marka aan joogno aan rabna inaan ka xaqiijino saddexdaas cashir ay ku dhex jiraan ahdaafta ku jirta awaamish marka waxaan tagaynaa qaybta hore oo kacdoonka Mareykanka sheegay waxaan ka rabnaa ahdaafta aan soo sheegnay xaaladda Mareykanka wixii ku xambaaray mabaadi'da ay xambaarsanaayeen raadkii uu ka tagay America uga tagay iyo kii dunida uga tagay iyo dadkii ka qayb qaatay waxaan rabnaa in aan ka ogaano maxaa ku xambaaray wadanka Mareykanka inuu dagaal kacdoon sameeyo oo adduunka dhaco qalalaas ka dhaco oo dagaal ka dhaco la isku yimaado maxaa ku xambaaray dhowr sabab ku xambaaray sabab siyaasadeed iyo sabab dhaqaale iyo sabab nafsaani moral sababta siyaasadeed waxa la dhihi karaa waa iska soo koobayna kitaabka ku arki doontaa mutalabad mumaarasat al-huquuq as-siyaasiyya in dadka ay helaan xuquuqdooda siyaasadeed ala qadam al-musaawaa حقوق لسمن مع سكان الجزيرة البريطانية ذاتك كنا ودنك إنجليزك هذا معنى هذا مركب ودنك أمريكانك إنكستو دولة بدن فرنسيس إيه مثلا إسبان إيه سوق جميستان حتى إنجليزك جميستان هاي مركي كعذونك ودعاية إنجليز كانوا حدقين هاي الجزيرة دي سو إنجليزك مركا حق معمولة وجوجو أو متقانا قاتو أمريكا بقرطوي إنجليزك marka waxay dareemeen dadkan Mareykanka lagu sheegan dad yoo isku dhaf oo ninba meel ka yimid waayo oo isku dhaf oo la bixi markii dambe Mareykan la bixi doonaan laakiin qolaba meel ka timid Irish hebelo Spanish hebelo xaswa laakiin mustacmaraad ay sameysteen oo degeen ayaa jirtay marka waxay dareemeen in xuquuqdooda siyaasadeed ay ka hooseyso ninka Ingiriiska ee jooga wadanka Ingiriiska iyo ayagoo mataqaana badankooda Ingiriis marka waxay isweydiiyaan war anaga Ingiriisana kuwaas Ingiriis waa maxay nooga fiican yihiin arrimahaas waxay dareemeen in dulmi ku socdo dhaqaalaha sinaan kama jirin waxay dareemeen siyaasadda isticmaalka Ingiriiska waxay ku saleysneed dadka mustacmaraadka deegaanadan degay waxay ka joojiyeen inay ganacsi la galaan ay dawla غير Ingiltara waxaan Ingiriiska ahayn inay la ganacsadaan marka cuna qabateen camal meel kasta inay ka ganacsadaan ma yaaliir lama ogola kama manacuu min iqaamat sanaacaat hatta la tunafis masanic waxa loo diiday inay sameystaan warshado oo la mid warshadaha Ingiriiska oo kale waxayna diidayeen dawladda Ingiriiska waxay diidaysay inay la tartamaan tartanka ay diidayeen marka dadkii waxay dhahaan dhaqaalaha curyaamina nagu socoto asbaab nafsi waxa waaye dadkan oo soo degeen wadanka hadda Mareykan la leeyahay يعني waxay u baahnaayeen muuqaalo siyaasadeed iyo bulshadeed oo u buuxisa ama u bedesha naqsiga ay dareemayeen يعني dadkan waxay ahaayeen abnaa faariina min al-ittihad wadan qarniga 17aad waxa ka dhacay wadamada Yurub isbedel diimeed yimid madhab cusub oo loo protestant ah soo baxday awal waxa jiri jiray laba madhab bas oo Christian Catholic iyo Orthodox
kuwan Catholic ahayn Orthodox kan wadamada Masar iyo Ethiopia iyo waxaas iyo Turkiya iyo way laakiin dhinaca Yurubta Catholic ahayn waxa soo baxay nin dhaho Martin Luther soo baxay wuxuu asaasay madhab la dhaho Protestant macnaha ka fahmaysa Protestant waxbay diidan tahay waxay diidan yihiin afkaarta ku jirta Catholicada marka madhabtii hadda waxa ku badan dawladaha waaweyn Mareykanka Ingiriiska wadamo badan haysto madhab marka madhabkaas xoogo wuxuu ka soo horjeeday Catholicada marka waxa bilowday loolan iska hor imaad oo labadii madhabood wadanka Ingiriiskana markaas Catholic u ahay waxa marka la ogaarsanay ama la cadaadinay dadka Protestant ka qaatay marka way soo carareen wadanka Mareykanka u soo baxsadeen ayagoo Ingiriis markay meesha u soo baxsadeen oo madhab ahaan loo soo bursaday waxay islahaayeen meeshan waxa ku heli doontaan wax idin kabo nuqsaantii xagga ku haysateen ay islahaayeen laakiin markay meesha tageen laftirkeed waxay dareemeen wali inay xuquuqdii siyaasiga helin marka nafsaaniyan iyo faqriga jirayo qaarkood maxaa ahay sabool iska ahaayeen oo min waajahati al-adala ama qaarkood dambiilayaal ahaayeen marka intaas markay dareemeen asbaabahaas marka keentay inay iska dulqaadaan okay marka intaas ardayga uu fahmo waxaan laga rabnaa casharka u dhameystiri doontaa macallinow laakiin asbaabihii hadda ka soo qaadnay waxaan rabnaa ardaygii marka ardaygii الأسباب أكل كان سيدي أساتذة هوري إذنكو شاقين مركز تلو علينايو هل كان هدف كلية حفيرين كل ولا قرب أردقينو مركو لي أردقان أنا إسقيميناي وأوليه أحدد العوامل التي دفعت إلى قيام الثورة الأمريكية محل قوضة ما أنت إنه كو أخريه أو كله أستاذ أنا أحدد العوامل التي دفعت إلى قيام أهلا وسهلا فضل وفيعتها ما لذا ما وإنه تريا عوامشي وكانت كعذاب إنه نوع أصلا ترينين هذا كان وحبا قيمة ملهانين ومركو تريو أي صح نقول نساء معلك ديكرا نعم وصح marka oo qiimo marka la leeyahay waa inay wixii laga rabay oo markiiba sheegaa taas waa cibaaradan kaliya ma aha waxa loo socdo mid kasta waa laga rabaa asif xaala Ameerika kulli waa laga rabaa ka gudub casharkaas intaas hadafkaas oo aan ka rabno waxaan ka arki doonaa hadhow meelaha dhan oo ku jiro darsi thani kacdoonkii Faransiiska galina أصلاً كعدون كفرنسيس إن كستو أنك ربنا دمان أهدافتان هدانا كان بالتصالة كديانينا منو حقيقة وبي أنك ديانينا سامينتا كعدون كفرنسيس كأويا شيء أما لهاي حبو سامي كعدون كإسلا فرنسيس سامي أوكي أثرها على فرنسا سامنت أكلها سلا فرنسيسكي محاوي كانت فرنسا أبرز المتأثرين بالثورة ذاتك أقبضنا سامنت أكويا شيء كعدونك فرنسيسكي آية وأحدثت فيها كعدونك سامنت مركب نيجاتيف أما بوزيتيف واي سامين مركب مقشد أما سامين في عنواي أما سامين أو أم في عنان واي سامين تاوي مركب تغييرات هائلة اسبدلوا وين وكسمي حيث رسخت مفهوم المواطنة قلت حيكفى إذن وحل لهم مواطن معني سيفهمين قفك مواطن كمحل قبضة وحيدهن أن فرنسا ملك للفرنسيين فرنسا وحاسكلا ذاتك فرنسيسك لا للحاكم نيك بقر كأملها وأركت في عنوان ذاتك هدي فهمان إن ودنك أيق إليهن وسنقف لهين ومواطنة في عنوان أركت في عنوان لكن ذاتك قاركوذا وحيو هايستان
إن بقرك أما كان حكومة ودنك أسيل أولية ما كسر مركز حكومية ما يجرى يعني ما يجرى سيد هذا كهر بدأ عذابه مركي أو تسألوي مثلا أستاذ كهراء وشيء مرك أو كهذا لا بهاشان لو سيفيكس التربية الوطنية ودنك دتك عائلك إنه أبو رواد ودنك قف معها أما سيستم معها تسأليه أو أستاذ كأسواقات وحكم إذا هري كعانك مركو جوج مادة كعانك اللي يجري إسكولك التربية الوطنية ما هي كعانك اللي يجري مادة اللي جاي ومادوينك كمدة أولي بهذا كل عدد سيجارة اللي وفيرنا أدلون مادة ذا سمركة وحال جعل سي أرض كعانك يدك اللي بس لكن ودنك لما جعل سنة نتيجة كدلتي إلى يومنا هذا والد دريمة يعني إسكولات كيلا فوق صدي dhismooyin kala foqsaday wax kasta la bilqaystay marka uu disco kulay maxaa igu jiro systemka lahaay asana lahaay wadanka kacdoonkan marka Faransiiska waxa ka dhashay fikradan aad u fiican oo war Faransiiska iskale boqor iyo hebel iyo system malaha aragti aad u fiican way hantideedan oo intisaaraadta igulahadan oo kullu ma fiiha shacab Faransi haday igul hashana dadka iskale hantideedan dadka iskale macnaheedu waxa way qofkii wuxuu ilaalinayaa hantida meeshuu joogo ilaalina hantida wixii ka xun waa sameeyna laakiin markuu dhaho maxaa igu jira aniga cidaas iskale wax jijibiyo waxa waaye marka tarbiya wataniyada saasay muhiim u tahay arday in yani oo mutaqaana la jeclaysi وإن كان من المألوف في زماننا إن كستو هذا أرنتان وهذا أن شيء عادي كته ودن كان وزمن كان وقت جاس وحلا يا بقى إن هو ودن مدة إسكاله حايل وحلوه يستي بقول كل إن وحكي استليه الله يستي كما وحي كلو سميسي نظام كبرشدات كركتي انقلب النظام الاجتماعي وحال بابيي نظام هانتي قوستك أما دول قوستك قفا وحسكله حمر دن أسي شغالة للو يهاي دول قوسي بحاول dadkii waa sinaadeen min umaan warijaal wadiin wa arki doona 10 marka u degno tabaqaad oo qaybsanay wadanka Faransiiska iyo meel kasta oo Yurub waagaas saddex tabaqad ahaayeen tabaqati nubala tabaqati rijaal kaniisa iyo tabaqati dad masaakiin iska shaqeeyay intaas marka ka gudubno saameynta uu ku yeeshay saameynta marka maxaa yaani noogu muhiimsanay horta muwaadinimada la fahmay waa shay muhiim ah wadankan inaad leedahay hadaa ku qanacsan tahay arin aad u fiican way marka ku qanacsan tahay gurigaaga amal oo noqona gurigaaga dhibka waa ka ilaalisa nadaafadiisa ka fikirta wixii halaaba waa sameeysan wadankan asaas inuu ku noqdo markay ku noqoto muwaadana fiican way taada kale isbedelka dhinaca bulshada aad muhiim u tahay maxaa yeelay nidaam oo culays ku ah dadka markii uu ka baxa meesha faa'iido weyn way ardayga markuu fahmay sidii la wadadan waxa isbedelay male qaabka aan ku soconan leeyahay markuu xaaladda Faransiiska sheegay inuu xaqiijiyo raba Faransa kacdoon ka horsay ahayd ardayga inuu fahmaan raba xaaladda ku sugnayd maxaa ku xambaaray kacdoonkan inuu dhaco oo waliba dhiig badan ku daato oo mataqaana xabsiga ugu weyn ay la qabsado oo mataqaana boqorkii la rido waxa soo dhan bila macna ku noqon qiyamkii saameyntii Faransa ku yeeshay hadda intii aan soo sheegnay waa kitaabkay ku oran tahay ardayga markuu fahmo oo ka jawaabo markaas aan dhihi karnaa darsiga saddexaad ama 10ka saddexaad dagaalkii koowaad ee adduunka dagaal weyn waaye ilaa ay hadda dagaalada adduunka dhacay waxa lagu qiyaasay intaasoo kun oo dagaal dada soo tiriyeen encyclopedia waa ka helaysaa inta dagaal adduunka ka dhacday oo kumanaan gaarayo ilaa waqtigii hore ilaa ay hadda laakiin maxaa markasta loo sheegaa dagaalkii koowaad ee adduunka dagaalkii labaad ee adduunka waxa loo dhahaa sababta loogu bixiyay kulli waxa ka arki doontaa qaabku u dhacay inta dawlad ka soo qayb gashay inta mataqaana khasaare ka dhacday baaxadda uu la ekaay dagaaladii kale oo dhan laba dawlo hadday u badato saddex dawlo ay isdirir kan waxa waaye dawlado badan iska hor yimid oo mataqaana dhibaato bayn isu gaarsiin marka saasa alcaalamiya loo dhahay oo ardaygii hadaaftii markaan intaan oo ka helno sheego sababta dagaalkan u dhacay dagaalkan heerarka uu soo maray dhacdooyinkii wixii ka dhacay saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya
hadda waxaan ka rabnaa inaan yani namuudaj ka dhigano maxaa natiijada ka soo baxday dagaalka koowaad ee dunida maxaa weeye dagaalka waa dhacay wixii dhacay waa dhacay muxuu saameyn yeeshay واكن أقرأ ثم أستنتج أرضي هرت وآخرنا ثم أستنتج وحن صار خسائر الحرب خسارة تقال كان كوات الدون كدعي خسارة بدنا كدعي لا يمكن تخيل الخسائر البشرية للحرب العالمية لما قياس كرو خسارين كدعي تقال كي كوات خسائر تيس لما قياس كرو ترك أكثر هدايا وكنا لحدا يشن مليون أو قفك لحدا يشن مليون أو قف هذا قال كقيب قاتي لحدا يشن مليون وحال ذلك كان كل انت اللي ودي لي إن كبدن 6 مليون والد لي وحام جر عذر قول انت 2 مليون أو قف أو دمتي وحال داوعي oo dhaawac fudud ama dhaawac culus ka soo gaaray 21 milyan oo qof bal hada si fiican u fiiri macallimo inta rafaad meesha ka dhacday wa usira wa fuqida 7 malaayiin wax la qafaasho iyo wax la waayo oo ilaa ay hadda dadka dagaalka Vietnam hadda waxa la dhahaa ciidan badan oo Mareykan ilaa ay hadda meel joogan ma dhinteen ma nool yihiin lama sheegi karaa la yiri tiyo kale waa 7 milyan wax la qafaashay iyo wax la waayo idaafatan waxa sii dheer kaas askar iyo wax dagaalamayo ahayn 7 milyan oo shibil ah oo rayd ah dagaalkaas lagu dilay gurigiis iska joogo oo nabad qabo mutaqaana marka waa khasaaro weyn lam tajid aa'ila fi shu'ub al-mutaharibah dagaaladii dadkii dagaalamay ma jirin qoys illa wa faqadat ibnan wahidan ala al-aqall aw akhan ama hal qof ama wax ka badan ama walaal ama wiil inuu ka dhinto bal in ba'd al-aa'ilati qaarkood qoysaska faqadu kull dhukuriha ila dagaalka nimana galay waa waayeen qoyskaas oo dhan haday 5 yihiin 10 haday yihiin 15 yihiin waxay yihiin dada waayaba eber noqday adooga habartii la ka soo haray ومحيت مدن وقرى باكملها من الخريطه مغالوين ابا دولك دن laga simay eber noqday وحولت اراضي زراعيه خصبه الى مستنقعات مغفره دولal iska beerale ay qurux badnaan waxa laga dhigay meel eber oo qashin qub بالاضافه الى الاضرار التي لحقت بالسكك ماليه ترينده مرايين اسغارسينta مواصلاتك ayagana waa la burburiyay maalihii laga qoday dhuxusha ayagana biya lagu shubay ma ahaya in la burburiyo ma doof waxa lagu shubay غمرها الطرفان متحارب بالماء بيها laga buuxiyay ليش لمنع استغلالها من قبل si aan loo adeegsanin biya laga buuxiyay maxaa adeegsataa marka khasaaradiisa intuu la eg yahay waa qiyaasi kartaa 65 milyan oo intaas ay dhimatay intaas dhaawacantay intaas mutaqaana la qafaashay oo dadweyne oo shibil intaas la laayay meel arin yar ma ah ardayga markuu intaas fahmo hadda markuu wuxuu dhihi karaa waa fahmay haddaan sheegaya nataa'ij al-harb al-aalamiya ma adraartiisi aan soo qaadan adraartiisi haddana waxaa la rabaa in nataa'ijkii oo dagaal ka soo baxay Soomaaliya maxay dib u geysatay dad badan Soomaaliyeed ka qayb galay dagaalka kulli meel kasta saameeyay عربتو سامي مسلمينتو سامي كل سومالي حتى waxa ogtihiin dawladda ugu weyn ee caalamka islaamka Uthmaaniyiinta waa ka qayb gashay waa mataqaana casharadii markii aan hadda bixinay oo aan wax sharaxnay ahdaaftii aan soo sheegnay waxa la rabaa inay ku jirto as'iladii wahdada oo cutubka waakan ardayga marka dhahayo وحدد العوامل التي دفعت الى قيام الثوره الامريكيه عوامشي ku xambaartay mareykanka in kacdoon ka dhaco ardayga sheegay markuu sheegay macnaheedu waa inuu sheegaa asbaabihi cawaamish inuu sheego waa kuwan kala dhan waa noo jirnaa laakiin sanbaladan ka hadlayna saameyntii kacdoonkii Faransiiska uu ku lahay laftirkeeda waa soo qaadanay نتائج الحرب العالميه الاولى نتائج كسب بحي وحده اركين او رفاض اي خساره ايا متقانا aan soo aragnay sidaas marka waxaan uga gudbaynaa hadda waxaan mutaqaana
waxaa hadda saas ku dhammaynay meesha namaadij leeyahay mataqaanaa casharaba bixinayno macallin adaa waxaa la rabaa haddii wadada lagu xaaro hore inaad ku socotid man saara cala darbi wasal wadada ninkii qaado waa gaara meesha u socdo haddii wadadan hadda lagu dhaho wadadan aeroboortka aadaysa lagu dhaho oo aad bilowdo inaad socotid aabadaahda daarabtid ugu dambeyntii waxaad tagaysaa aeroboortka laakiin haddaad aqooninba wadada meel aad waa dhumaysa ama meel kale aadeen haddii marka qaabka kitaabka uu qoran yahay aan isla fahamnay waxaan isleenahay ilaa wixii namaadij aan sameynaynay waxaan isleenahay si fiican looga dhargay qaabkaas haddii lagu socdo biidn illaahi tabaaraka wa tacaala kitaabkii si fiican loo fahmaa hadafkii laga lahayna waa la gaara hadduu ilaahay idhaa marka weli waa sii wadaynaa hadda cutubkii shanaad waa noo dhammaaday waxaan ku daba qabanaynaa hadduu ilaahay idhaa cutubkii lixaad oo wata cinwaankan idiin muuqdo annudum asiyaasiya hannaanka siyaasadeed oo laisku maamulo adduunkan waxaa loo qaybiyey hannaanka adduunka ka jiro 3 qaybood ama 3 hannaan inuu ka jiro hannaanka baarlamaaniga ah systemka baarlamaaniga ah oo hadhow xataa macallinow marka systemyadan xoogo aan fahamtid ama waa fahamsan tahay in annaga xataa isku dabaqi karno Soomaali ahaan si waaqic u noqon waa fiican tahay systemka baarlamaaniga waxa waaye waa system yatimu fiha damju bayna sultatayn waxa isku dhaxfuran labada awood oo ah tan ay u bixiyeen sharci jidinta annaga laakiin waxaan dhahnaa xeer dejinta dhahnaa lianna sharciga ilaahay waaye sharciga ilaaha dejiyo sharaca lakum min ad-diin asaadahay ولكل جعلنا منكم شرعة إلها دجيو لكن حير دجنته أي شرع عصب نصوص مكوسو دجيناين لكن نظام يحارك وشيء بركزاسا اسكلنا يفولنتا وحامرك اسكو دفن شرع دجنته أما حير دجنته إيوه ولي waxaan rajayn lahay xeer dejinta in laqabka magacaas la siiyo kaasa munaasib ku ah sharci dejin hadii lagu dhaho si kala loo fahmaa iyo tanfiidka sharcigaas marka waxa way ama hannaankaas waxa la dhahaa hannaanka baarlamaaniga waxa way fulinti iyo xeer dejinti ay isla shaqeynay nidaamka oo madaxweynaha ama ri'aasiga ah yatimu fiha al-fasl wa kala soocan marka labada awoodood tii ahayd fulinta iyo tii ahayd xeer dejinta waa kala soocan yihiin nidaamka loo waxa jiro tan wax laga soo qaadanayo tan wax laga soo qaadanayo al-akhd bi ba'd mumayizat nidaam ar-ri'asi hannaanka madaxweynenimada wixii fiican laga soo qaadanayo iyo wa ba'd mumayizat an-nidaam al-barlamani iyo kan barlamaaniga qaar laga soo qaadanayo waa la isku daraa marka waxa la dhahaa an-nidaam al-mukhtalat nidaamka isku dhafka ah la dhahaa nidaamka isku dhafka ah marka taas ka jirto adduunka saddexdaas hanaana ka jiro annaga marka keenahay nidaam barlamaani miya nidaam ri'aasi miya nidaam mukhtalat miya in marka aan casharada aan akhrino marka qeexidii waatana nidaamka hannaanka siyaasadeed waa canaasir ama curiyaal la isu keenay oo ay tahay bulshada in ay mataqaana sideeda u taagnaato aan rabaa yaa maamulayo sulta siyaasiya in la isu taliyo in la isu taliyo guriga qofa maamulo xafiiska qofa maamulo iskuulka qofa maamulo wadankan inuu qof maamulo maamul la'aan fawdo anark isdabayaac barbariyaac iyo waxaas marka waa in jirto awood maamusho sulto maamusho siyaasadeed nidaamka marka uu ka kooban yahay hannaanka siyaasadeed waxa waaye tandiimaad siyaasiya waa in jiraan ururo siyaasadeed cilaaqaad siyaasiya xiriir siyaasadeed waa inuu jiraa wacyi siyaasi garaad siyaasadeed waa inuu jiraa oo intaas oo dhan ay saameynayaan midba midka kale marka intaas iskaabaan ayaa waxa la dhihi karaa hannaanka siyaasadeed saas waaye taas marka waa qeexidii oo nidaamka siyaasiga maxaa laga wadaa weli sidii ku soconnaa cutubka markuu dhamaado waxaan ka rabnaa
كل لو 10 عمل ملينا وحنكربنا مركو دماادو 16 واي وحنكربنا أهدافta aan ka leenahay waxdada markay dhamaato hadda waxa u gaarka ah hanaanka baarlamaaniga maxaa u gaar ah characteristic u gaarka ah hanaanka maxaa lagu yaqaanaa nidaamka mukhtaladka isku dhafka maxaa lagu yaqaanaa waxaa la sharxaa adawaat ar-riqaab al-baarlamaaniya baarlamaanka wuxuu u joogaa in uu kormeer joogto ah ku haayo maamulada sultada awood gaar ahaan tan fulinta iyo madaxweynaha fulin la ku jira asnatirkiisa inuu ma say u shaqeynayaan wasiirada xafiisyada say u shaqeynayaan maxay ummadda u hayaan waxa soo dhan marka qaabab waxa jiro oo ayaga ay ku ilaaliyaan oo arki doona haduu ilaahay kitaabka marka galno waxa kamid ah hadii ay wax dareemaan muasasay wax ka dareemaan ama wasaarad waxa way su'aal madaxda la waca ama madaxda la waca sida hadda baarlamaanka uu sameeyo su'aal la weydiina waxaas ka waran haddana waxa jiro istijwaab waxba la dareemay su'aal adaga la weydiina haddana waxa jiro ugu dambeyntii on kalsoonida iyo waxba wax laga qaada sida haddaba oo ay ka dhacday meesha oo mutaqaana ayaamahan wuxuu isu barbar dhigaa ardayga macallinka ma haya macallinka waxa la rabaa inuu ifiyo bis رئاسي برلماني maxay iska mid yihiin maxay iska leeyihiin maxay min hay'at al-ijabiyat maxay ku fiican yahay nidaamka ri'aasi maxay ku fiican yahay kan baarlamaani maxay ku fiican yahay maxay ku xun yahay labadaba maxay ku xun yihiin nidaamyada adduunka ka jira noocyadooda ogaana noocyadooda inuu ogaadaan raba ardayga si uu adduunka ula socdo tusaaluka keena wadan hebel la weydiina nidaamka ku socda hanaanka ku socda inuu wax maadaama uu sharaxday inuu fahmaan rabo tabiicada nidaamka Soomaaliga waxa isku soo maamuleysay cabra taariikh ila taariikhda hanaan mar waxa jirtay qabiil ahaan isku maamulay oo qabiilka oday uu leeyahay qabiilkaas uu hagaayo qabiilkan uu leeyahay laakiin ma ahayn dad midaysan oo hal dawlad leh ma ahayn laakiin qabiilka dhexdiisa waa midaysan yahay oday uu leeyahay dhaqan uu leeyahay xeer uu leeyahay waa uu kala joogaa taasoo kale waa soo mareen ilaa markii dambe heerkan la soo gaaray oo dawladnimo in la sameeyo mar waxa jirtay oo maxaadirkii hore istaad cibaaro ka sheekeeyay in ay midoobeen koonfurta iyo waqooyiga 1960kii qaabka ku midoobeenna waa soo qaadanay waa soo aragnay ardayga inuu si fiican u dhirigsan yahay la rabaa waa la midoobay waa la farxay waa la riyaaqay hadana midnimadii waa baabaaday waay maxaa keenay in si fudud بعد يعني لحدنكي إلى 89 مدة قابن إن لكلبحه محاكين مركو هري إن لبارو أسباب تكنت أمش كجرت محايل أدونك وهم ذوبان إلى قرون مذوبان لكن إن في غضون سنوات قليلة لكلبحوا لي هذا بس وكلبحني محاكين أرضي إنه فهم سين ربا سأشك إلى بريها دي مسؤوليته قال وحال ربا إنه سوى جادين كرو ورأي يعني أما اقتراح إن كستو حتى حقوق أرنت حتى نهيستو مال دير أي كل جوكتو أو لبدل عمل لوكال هذا يو لكن سيمر لبعض وقوي كوفرتي لسكسو علين كرا قاب كل أديكسن كرا وهذا اللي يحبان قبطع لكن قاب كلفتر كيس أرضي كلفتر كيس معلومة كبحده أما رأي ولا إنه حاجة وشيء كر وحدعك الرأي كفي عن رأي هذا الوسعد أو لا جيبوتي الوشري لبدي مدح يهبل شمال الجنوب كشرين وحبك سو بحن رأي كفي عن وكين كريان وكفي عن كريان النبي عليه الصلاة والسلام أصلا صحابة وين أبو بكر عمر علي عثمان يلا فديه وحافظ يا مركع عبد الله ابن عمر عنقير عمر بن الخطاب عنقير أفر يتمن شل يتمن جرا النبي سؤاله ويدي صحابتي وحاس كورما كل والله آمس والله جوابه والله النبي الشيخ جوابي لكن يركب مركو أبيس وتجي عمر وحول له أبو النبي سؤال السويدي أنا وانقرنا يوم ما حاول شيء ويسوله odayaal iga waaweyn aan ka cabsada mooyis maxaa u sheegay soo waaba kugu faani lahayn marka cunugaas yar fiiri wuxuu fahmay wax saxaabadu waaweyneed oo fahmi waay marka lama qoorsan karo ardayga wax badan ku jiro oo macluumaad oo aqoon ilaahay si marka waa ra'yi kan waan dhigi karaa saddex sambal ama saddex namoodaj
inuu keeno mid ri'aasi ah mid baarlamaani ah mid mukhtalid ah oo maxaa laga wadaa wadan hebel waa ri'aasi maamulkiisa wadan hebel waa baarlamaani wadan hebel isku dhaf waay حتى هذه كتاب قرن إنترنت كي بحوث إنه راديو وحال جربها نظام كوفي عن هناك كوفي عن أو بلشة الصومالية لو ما ملكه وقتين محاضر كهرة وحوش هاي إن هذا لحد ما يسنا كهر لا دري لا قبيلة والدستور يحرك الوقراء إن ما أنتنا قبيل هذا اللي اسمه 4.5 ولا لا هي أفر ينص قفا نص ألو معمولا مركزاس دولة النمذج هذا حوجه وعدك هاي إلى لقب حبويه أصلا لقربها 10 كوكوات انقلنا مرك أنت صار دعاء هاي النظام الرئاسي والبرلماني النظام الرئاسي والبرلماني انقلنا أنت كأخرى في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن أنت نقربها إنه يقانو أنواع نوعية هناك السياسة عالمك نظامك الرئاسي أو مدحوين لماذا إنه خصائص وشيء كرو يعني كان نظامك لو حاجة شبه الرئاسي 10 إنه وجرتها شبه الرئاسي شبه الرئاسي وحواي نوع كقدسا كان رئاسي جوا كتابك كجواب دون خصائص النظام البرلماني نظام كأنك برلمانك محكوم في عين أدوات الرقابة سيدو برلمانك وحقوق كورميرا أو institutions أو مؤسسات الدولة أو كورميرا وكي وحقبتي كي كجابيي ولا حساب تما قابك ولا حساب تما إن اللي يقانون نشاط 2 ملخص خصائص النظام الرئاسي نظام كان رئاسي ومدحوين ماذا وحوليه خصائص وقارئ أو كسر عيسو نظام يذا كله أو سياسة محاور نظام الرئاسي وحاول الرئيس منتخب من قبل الشعب مدحوين يسود دورتين دتك تسال أهان ودك كون موضوع مريكا أو كلوه دتك ودون وصندوق تجايا مدحوينها صار دورنا والرئيس منتخب من قبل الشعب أنا هذا ولي مقارن برلمان وضيال حباس وسط صاروا تركيز السلطة التنفيذية في يد الرئيس أثناء وحياة أوكار وحواي أود فلنت أردن قعنتك وهاي مدحوينها مدك هذا مريكا وزير مجرى وحده كلمة وزير مالي وحقهي هرمها دي بدل يقول يا وزير مدحوينها الفصل شبه المطلق بين السلطات حقوق توسع أودها ملوك اللي صار واسكت حجران مركز دام كان ساس أيا خصائص تسكمده أو رئاسي أردك مركو حلقة ربع هذانا إنه شاقو خصائص مركو صار شاقين نظامك أو رئاسي خصائص تيسر هذانا إنه شاقو نظامك بارلماني يقابك باران أما أكور ميران iyo farqi u dhaxeeya ri'aasiga baarlamaaniga asna uu ka sheegay 3 mataqaana nooc waxaan galeynaa 10ka labaad النظام الفدرالي والكونفدرالي nidaamka federaalka ah iyo nidaamka konfederaalka ah kitaabka waan nooga jawaabi doonaa ama noo sharxi doonaa federal waa hal wadan oo dhowr gobol ama laba ama in ka badan oo gobol ma ah dawlad ma ah oo isu tagaana la dhaho فدرال كونفدرال وحلها دور دولدود قبل ما أصلا كونفدرال دولدو أو كلا جارة أو كلا مذا بنان سوتجا كونفدرال سمي سنة سيدا يوروبيان EU أو كلا يوروبيان متقن دولة بدنا كجر إنجليز كطلياني وكلا دولة هنان اللي هي المركز 10 إنه وصفي عنه قرين أو يعني هدي واحد عان هي نقولنا كل أوكي أردك مركو حنكربنا درسيان مركو دماغه إن وحنا أكل سوء إكره هناك فدرالك محل جوده هذا واحد يكرته الصومالي فدرال اللي وشاي ضد بدل ما فهم سنة فدرالك يعني حتى مامور قبلين جدا فهم سنين واحد نظام كونفدرالي محاول أنا جمليهن أنا فدرال واي هل دولة نهاي لكن كونفدرال مركي مثلا تسأل أهان أنا كينيا توبي هبلو أسكو درسون كونفدرال يكره لكن فدرال ولا نهاي إنسفي عن لو فهمون خصائص متكست إلى ذا فدرال محولي هاي أودود أنت اللي أكتهاي كون أودود أنت اللي أكتهاي يا مامولاي كتاب كان هو قرنته وحسوكوا سيدا لو حددي اختصاصات كلا وضع النظام فدرال ومحا حق ولا ذا
كونفدرال ما حق ولا هذا أساس كقانون الفدرالك حقوق السنية نظام كان فدرالك حقوق السنية هاي وحنان حقوق السنية وعام سلطات كل ما أودها وكشة كينه طبيعة النظام الصومالي عبر التاريخ الصومالي تاريخ برعة النظام كيف سعودي فدرال ما يهد محيهد وحصل أن الرعاة الربا نظامك أبوه بون تيواي نظامك أبوه مناسب سن ومش بالشدة الصومالية كو آدن الربا marka akhyaaray casharadaas waxdadaas lixaad inkastoo ay gaaban tahay haddana nuxur weyn iyo macno weyn xambaarsan tahay waa waxdada noo kala sheegayso hanaanka la isku dhaqo dunidan caalamkan aan joogno waana muhiim hanaanka inuu noo cad yahay hanaanadaas maxaa kee fiican kee xun in la kala sooci karo kee anaga ku sugannahay maxaa munaasib noo ah يعني إن لبرتو وحال دحي كرتو بريتو إن شاء الله إن أكا قيب قشي أو كقيب قال أرضيك لنا عسلكي السياسي إنه وحد يقان الربا الدون كان هذا أو جديد قفك سياسة والله صوت وبراء مع هديو يمال بدن وحاجر الوبرت السياسة فإذا مركب محاوي هنانكي وحلو دقيلة ده دقيسة ده معموليسة أبكيكم معمولة وحاسودن ونقش كينا عشرة اللوجو بقول دون هدول هيرا إن شاء الله تعالى أرضنا إنه وحال ربا مركا أي سفيعا معلنا أو فهم سيسد أو فهمان أو نرشودن أكون دبقي كران يوم من الأيام هذه سلك جاس أي جران هدو إلى إيران مرتد دوح أقونتيسا برو لقى ممارمي